وعلى بغر بور مدو أنا حال كسيني وديجان تسأل عليك توكينا بغل كي بغل حال قالوا هذا نيجا بغركا بور مدو يا بري يا سوماليلاند هرجيسا محاولوا سيرنا هرجيسا محاولوا سيرنا اللي لا رايني ملاشان قروحنا بدن أرداغ بيلكو عاوة هالكن ملاشا قروحنا بدن حوغلي كم موجسي حسبك عدالة إيا دريالك فيصل علي حسين قرن تاغن هرانا قرن تاغني munaasabadan ayaa ahayd mid ay beelaha Bilgob ee Bilaal iyo Gabdoon ee beelaha ciidagale ay ku muujinayeen cududooda taageero ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCIDA. Munaasabadan oo xalay ka qabsoontay magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sare ee xisbiga UCIDA. ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadashay xogayaha abaabulka ee xisbiga Khadra Xaashi oo munaasabadan soo agaasintay. ملاشان قروحنا بدن أرداغ بيلكو عاوة هالكن ملاشا قروحنا بدن حوغلي كم موجسي حسبك عدالة إيا دريالك فيصل علي حسين قرن تاغن هرانا قرن تاغني حوغوبي إيا فرطوبي إيا اللي بتابينا لا قرن تاغن آد بانو سلاميا هداينا هاي بالقبو وروشو تايسمو ورسقها وقرأيها مكاوى هدانكي صومالي الروش هدانينا يي حسبي قرؤي عدالة إيا دريالك مستنباتك حق الله ويان أستنبانا إلي كلاني وانا السمان قارية أولا قد بيلانا waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay odayaal waxgarad dhalinyaro iyo haween kuwaas oo dhammaantood muujiyay taageeradooda xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCIDA. waxaan kaloo idiin sheegayaa Faysal saddex buu ku suntan yahay markii dagaalkii sokeeye dhacay Faysal wuxuu ahaa ninkii nabadda ku suntanaa ee dhiiggeenna diidayay inuu dhiiggeenna isku daato ninkii diidayay buu ahaa ninkii meel walba soo maray buu ahaa midkana wuu ku sintay oo shisheeyaha wuu necab yahay waana muwaadin waxa shisheeyuhuna wuu necab yahay isna shisheeyuhu necab yahay waxaan idiin sheegayaa inaad Faysal doorataan inaydaan naftiinna qiyaamayn inaydaan cid kale ku hadlayn waxaan kaloo idiin sheegayaa haddii labada geeda leeyahay ciise lacalay ka dhacayna xaal baynu ka bixinaynaa ninka boqorka buur madow iyo bari iyo Somaliland hargeysa maxaanu siinaynaa hargeysa maxaanu siinaynaa ilaa la raayay nin odayaa yaa la yidhi iyadoo xusbiga sababta ay u tartamayaan markii baash soo dhawaatay heereeyaad la socotaa wuxuu yidhi hadda isagoo ninkaa laasatay oo jeesbadha u guuray maxiniyaha ilaa tira jaahil baa tahay waxa weeye codku iyo warqadu
qaranku waa hanti uu qofku leeyahay hantidana waxaana lagaga qayb galaa qaranka waxaa la yidhi wax kalaa laysa siiyaaye xiniiro laysma dhibaatiyo xusbiyadu markay gobollada marayeen hadalladii waa haysaan oo waxay ku jiraan gobolladiinna kulmiya oo kale markay marayeen gobolkaa gabiilay odayaashooda qaarkood hadalladooda waxaa ku jiray xusbiyada kala booday leeyihiin sidaa markay leeyihiin way fogeynayaan oo kuwiina waxday way leeyihiin innagu cid baa boogale iyo cid baa bugta midna oran mayno waxaase weeye ha noqonina xabadda ninka rida ee isku dhufta waxaan leeyahay fursaddu marun bay ku soo bartaa waxa weeye waxaynu isgoonnahay faysal cali xuseen iyo xusbiga daryeelka iyo cadaaladda xisbigu waa xisbigeennii xisbigu waa xisbigeennii maalinba waxay noo sheegaan maalinba laba hay naga afduubtaan maalinba laba lacag ha siiyaan oo magacyadeena meelaha ay ku matelaan laakiin innagu maxay nahay xisbiga xisbigaasaynu ku hadlanaa xisbigaasaa xisbigeenniya waxaa la yidhi mid sinaantiina diiday adnagii sarrayntiisa dee waxaan ku bilaabayaa xisbiga waddani hadda midna aada u dhegaysta xisbiga waddani wuxuu nagu yidhi haddaad tihiin haddaynu nahay garxajis waxaynu raacanaa ciro waxaa kaluu yidhi oy meel kasta ka idhaahdaan codkeennii intuu iibiyey ina xaashibin siiran ina xaashib muxuu kula soo heshiiyey dee waxayba codka garxajis been buu sheegayaa laakiin waa been meel cad buu haya been cad buu hayaaye innagu haddaynu ciidogalan nahay afarno dee dhuuliga u raacay mooye inteenna kale waxay nahay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waxaan aad iyo aad u raali gelinaya annagoo haweenkii dilgala ama salaxlay degmada salaxlayba ah iyo koonfurta magaalada hargeysa boqortii madow oo waxaan ku yidhi taariikhdii uu sheegay uu yaqaanay maxaan ku leeyahay raaligelinaya waxay ninkii somalilan rabaayay ee cadowga somalilan ahaa ee dagaalka dara waanu kaa raali gelinaynaa somalilan oo dhanna waanu raali gelinaynaa habar jecelana waanu ka raali gelinaa boqorkana waanu ka raali gelinaynaa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waa jirnaa faysal cali xuseen faysal cali waraabe nimanka beerta isu sheegaya ee cilaan madaxweynehayna waa madaxweyne been baa sheegaysa maaleene faysal baa madaxweyneha waase faysal madaxweyne maaha faysal madaxweyne ma yahay faysal baa madaxweyneha nimanka dadka ku abaaraya eele haddii aan cabdiraxmaan cimado oran madaxweyne ee dadka reer salaxay habaaraya uma qalanto amarka salaxleeda waa meel qalabkaaho uma qalanto amar salaxle sidaynu wada ogsoonahay taageerayaasha xisbiga cadaaladda iyo daryeelku uu ku leeyahay beesha cidagale ama daawud ismaaciil naanaystaa ka dheeraato dadku aad uma yaqaanaane waxa weeyaan daawud ismaaciil waa dabiici waa taageerayaal rasmiya oon cid ku qoolaalin karta iyo cid ku qabsan karta midna aanay jirin reer salaxlaya waxaan idin leenahay waa dhulka keliya haddaynu ku soo hirano halka muunadda keliya haddee ciidagala leeyahay war waa gobolka keliya haddaynu doonayna inuu ciidagala ka soo hirto iyadoo ku soo xigta caasimadda somalilan mana ongelin faysal oo salaxle u dhashay inuu nin kale kula tartamaniyo waxaan doonayaa inaynu maanta faysal cali xuseen ku dooranno iyadoo ay ku jirto barnaamijyadiisa uu inoo soo bandhigay caafimaadka laydhka iyo muwaadinnimada inuu ka shaqaysiiyo aynu ku dooranno daacadnimada faysal cali xuseen aynu ku dooranno muwaadinnimada lama hayo nin dirays xidhay nin tuutay xidhay qarankiisa lama hayo faysal qaar ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga ucid oo isugu jiray heer gobol iyo heer degmo
oo halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey taageerada ay muujiyeen beeshani. qof kastaaba waxa weeyaan meel buu ku leeyahay awoodda ugu badan. tolkeen waxa weeyaan xisbiyadii kale intay iska iloobeen somalilantii kale ay waxa weeyaan labadii xisbiye kale amar aan cidagala ahayn ma hayaanba. amar aan cidagala ahayn labadii xisbiye kale miyay hayaan? waxaan idiin sheegayaa degmadaas Salaxley dadku way iska shaqaystaan oo waxa weeyaan boorkii sigada halga daayo. boorkii sigada Salaxley halga daayo. codka Salaxleyna waa injineer Faysal Cali Xuseen. cidagala haddii ay nahay siyaasadda Soomaaliland waxaan ka soo galnaa xisbiga wixii inanka yar iyo qofka weynba uu garanayaa. qof kastaana maalinta codka wuxuu siinayaa musharaxa Faysal Cali Xuseen. ka xisbigana wuxuu siinayaa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wixii. xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waa xisbiga keliya ee Somaliland horumarkeeda iyo ka shaqeeya isku haynta Somaliland. Faysal Cali Xuseen ma aha nin qabiil, ma aha nin cid gaar ah u shaqeeya, qaranku u shaqeeya qaranka. ninkii maanta qaranka diidayo annaguna waa ku diidnay weeye warku. waxay idiin sheegayaa maanta hadday xisbiga cadaaladda iyo daryeelku meesha ka baxo ciidagalana uu ka baxayaa. ciidagalow sababta u weeyey maanta aynu xisbiga u wadanaa waxa weeye in xisbigeena uu yahay akaadamiyadda xildhibaanada Somaliland ugu badan nagala soo baxo. cabdiraxmaanka maanta musharaxii wuxuu ku soo baxay xisbiga wixii. qofaan Faysal u xidhin sidhinka oo siyaasadda soo galaa ma jirto. waxa weeye maanta xisbigaa haddaynu sii dayno waynu iswaayeynaa, waynu iskaydaynaa. meelo dheer iyo meel fog baynu iska dayday. xisbigaa gacanta lagu hayo waa midha koowaad. midha labaad waxa weeye maalmada waxaan arkaynay qolooyin le Salaxley markii la tegey laga qaaday heestii sool. waxa weeye qaranka wax kastoo qaranka lagu horumarinayo annagu waan taageersanahay. garxajis haddaan nahayna dee garxajis qarankuu taageersan yahay kuwayntama taageersanaa. waxaa idiin sheegayaa xisbiga wixii baa inoo badana. markaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa galweynta Bilgo ama ardayga Bilgo oo aan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waxaan leeyahay halkaa ka sii wada taageerada xisbiga cadaaladda iyo daryeelka. xisbigaasoo innagu aynu leenahay waa hantida keliya aynu Somaliland ku leenahay. haddaynu dumar nahay, haddaynu rag nahay, haddaynu haween nahayba hantida aynu Somaliland marka siyaasad ahaan la eegayo aynu ku leenahay weeyaan. Faysal Cali Xuseen wuxuu ku suurtan yahay hadday noqoto dadaal, hadday noqoto isku hay, hadday noqoto daryeel, hadday noqoto maalintii adagta in lagu dhaqsado, hadday noqoto wax kasta oo qof bini'aadan oo astaan wanaagsan u ah ayuu xisbigaasi ku suurtan yahay. waxaan leeyahay salaantii iyo mahadnaqii faraha badnaa ee beeshii loo soo jeedinay mar haddaan saraakiisha xisbiga ka mid ahay waan idinka qabnaa. sadradana ayaa dooninaa celinaynaa sidaa oo noogu dhaadataan baan haddan isbaranahay idinku dhaadan doonaa. Faysal Cali Xuseen halkaa digtaan baynu dhigi doonaa. Faysal waxa keliya adduunka ka mid yahay xisbigooda waa inaad idinku noqotaan awrka ninkii hoggaanka qaban lahaa aadna hoggaamisaan. annaguna waan idinku dhabarfaynaynaa. waliyo waxaan aad ugu hambalyaynaya sandaladda Salaxley. waxay mar kasta ayagu u taagan yihiin inay soo dhaweeyaan qof kasta oo qaranka Somaliland ka socda. iyay sandaladu yihiin inay soo dhaweeyaanna way ku mahadsan yihiin. war wadani bay soo dhaweynayaan oo kulmiyay soo dhaweynayaan. laakiin annagu soo dhaweyn baa lagu leedahay gabadh laguma leeyihin. soo dhaweyn yaa lagu leeyahay nabad laguma leeyina xusbi buu leeyahay halkaasi. nin kastaana wuxuu kaga taga ayuu dhigtay. ugu dambeyn waxaa munaasabadaasi soo gunaanaday oo halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Maroodijeex ee xisbiga Ucid Maxamed Aadan. maanta xaaladda aynu ku jirno waa xaalad amba waaqic aad runtii ay dadka oo dhani ka dheragsan yihiin. shacbiga Somalilandna ay og yihiin. waxaynu ognahay maanta inay doorasho galayno. waddankeennana xaaladda aynu ku jirno xaalad aad iyo aad u adag ay tahay.
maadaama Somaliland markaynu eegno ilaa laga soo bilaabo 19 dagaalkii sokeeye dhacay ismaan oran jirin caqabad ka adag baa Somaliland hor imanaysa laakiin maanta caqabad aad u adag baa taala maadaama cadawga Somaliland maanta meel walba uu ka soo taagan yahay doonayana in lama jaxaabiyo shacbiga Somaliland dowladnimada ay ku naaloonayeen 3 sannadood aawa fariinteeda waxaan u sheegayaa Somaliland haddaa labada xisbiye kala idinugu soo daysaan waxaad ogaan doontaan Somaliland inay u dhamaatay labaduba way isku keenta u qabsanayaan marka maxaynu u baahannahay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka inay Somaliland ku badbaadino diyaar mawti waayahay markay taasi tahay waxaan leeyahay maalintii dhaweyd salaxlay tagay xisbiga wadani wax ceeb weyn baa ka dhacday waxaan leeyahay salaxlay heestii heedha soolay maxay ahayd horta maxay ahayd heestaas aada ugu fogaan waxaan leeyahay heestaasi heesina qabatana may ahayn deegaanka salaxlayna hees qabato may ahayn waxaa weeyaan waxaynu u baahannahay arrinkaa maalintaa dhaweyd meesha ka dhacay horta ninka la yidhaahdo amba boqor buur madow waxuu ka mid yahay madax dhaqameedka Somaliland buu ka mid yahay hadduu madax dhaqameedka Somaliland ka mid yahayna waxaynu taageeraynaa mar walba cidda qarannimada Somaliland adkaynaysa difaacaysa loomana baahna maanta inaynu nidhaahno cadowga Somaliland inagoo og meel walba inuu joogo iyo nimankii garaadada Somaliland soo weeraray ee gobolka Sool qaxiyey inaynu xaal nidhaahdo waanu ka bixinaynaa taasi mid meesha taala ma ahayn mana qabato meena qabataa ma qabata meesha aniga caawa anigoo weliba madaxdii xisbiga ka tirsan waxaan leeyahay boqor buur madow annaga xaalku siinay oo deegaanka salaxley ka soo jeedna boqolkiiba boqol xaal qaado